بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معنا ونكسن dadka qiimaha badan leh daafaha adduunyada meel kastoo aad nagala socotaan ku soo dhawaada xubin tafalaqaynta TV qaranka waxa ila jooga Cabdiraxmaan Cabdilaahi Hayaan oo inta badan kamida howlwadeennada iyo wariyaasha rugcadaaga TV qaranka isla markaana falanqayn iyo diyaarin ka sameeya dhacdooyinka arrimaha dibadda iyo guud ahaan wadamada geeska sida daawadayaal ka warqabtaan tan iyo intii ka dambeysay heshiiskii dhaxmaray MOU heshiiskii afgarada ee dhaxmaray dawladda Soomaaliland iyo Itoobiya hadal hayn fara badan ayaa ka dhalatay oo aragtiyo badan ay ka bixiyeen guud ahaan wadamada caalamka wadamada geeska iyo kuwa mandaqada haddaba arinta anagu u kuurgalayna iyo aragtiyaha kala duwan ee raayil caamku ay qabaan taliyaha guud ee ciidamada qaranka Itoobiya Birhanu Jula ayaa warbaahinta TV qaranka Itoobiya ka hadlay Cabdiraxmaan oo arrimaha u dhuun daloola ayaa bal marka hore sharax guud ay naga siiyo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Itoobiya waxa uu la wadaagay warbaahinta ku soo dhaw Cabdiraxmaan ومحسنت ولا عبد المس ساعة شكتي تريها جودة عندما قرأ كيتوبي برهان جولا وهو ورئيس السي تلفزيون كيتوبي على ETV وهو كهذلي أرمها الصومالية يحرك كذا هي إثيوبيا دولة الصومالية عندما إثيوبيا شوجا جودها الصومالية أمن كيلالية سلوك له كهذلي أرمها الشباب دجال في كل شرائط إثيوبيا سلوك له كهذلي ضد الصومالية ضد الصومالية sida ciidamada Itoobiya ugu kalsoon yihiin in ka badan inta dawladda Soomaaliya ku kalsoon yihiin marka wal arrimaha kala duwan ka hadlay marka wax ugu horeysa marka uu ka hadlay arrimaha Soomaaliya waxa uu ciidamada Itoobiya boqolkiiba 60 buu Soomaaliya ciidamada Itoobiya ma kooda ilaaliyay buu boqolkiiba 60 daarika fuduma boqolkiiba 60 buu ciidamada Itoobiya waxa ka baxnay buu Kismaayo marka ka baxno waxa laga yaabaa boqolkiiba 60 inay hoos u dhacday laakiin inta in leeg بارما ملابول وحول أمنية صوماليا أنا قاعد أقول هنا تهذا كله هدي أنا كبح نقول صوماليا واحد عايز يقول إن دولة صوماليا أينا أودي أما أنا أود رهين إن أمنية ذا ما مش وحول إذا ما أتمس توجا صوماليا كالسعودة أفريقيا كالسعودة أي تريبولي لكن انت يلالين كبدان naga joogay war gobol badan ma joogan marka arrimahaas ku hadlay walaal marka laga hadlayo dawladda federaalka Itoobiya gaar ahaan ciidamada Itoobiya waxay saameyn weyn u dhinaca amniga ku leeyihiin dawladda Soomaaliya ma ka hadlay arrimaha la xiriira amniga iyo saameynta wadanka ay ku leeyihiin gaar ahaan kooxaha xaq jirka wadanka ka dagaalama wuu ka hadlay walaal ninka la Birhanu Jula oo ah taliyaha guud ee ciidanka qaranka Itoobiya waxa uu yiri wuxuu ciidamada Itoobiya horta waraysiga waxa ka qaaday telefishinka Itoobiya waxaana ka waraysanayaan oo arrinkan keenay hadda waxa keenay hadaladii dawladda Soomaaliya iyo xurgufta ka dhaxaysa alwaagii Soomaaliya markii meel qabsatay weyday adduunka waxa ka dhageysan waayay si walba doonteen oo hor timaado heshiiska safgarad Itoobiya iyo Soomaaliland dhaxmaray markay si ka adduunka waxa ka dhageysan waayeen bay dooneen deetana inay magaranaysa hadallo xagashaa ay bilaabaan marka wuxuu yiri wuxuu dawladda Soomaaliya waxa la dagaaltaa buur al-shabaab buuri hadii aan anagu nahay Itoobiya ciidamada Itoobiya qaranka Itoobiya ee jooga gudaha Soomaaliya iyo kuwa wadanka ugu buuri al-shabaab anagu dagaalkooda oo naqana al-shabaab dagaalkooda iyo saloola macaamulana naga naqaan buuri waliga naga ma adkaan dawlad meel kasto inuu iska hor imaado anaga ku jibnay buuri taas waxa ku cadeynaysa marka hadalka tariyo waxa ku cadeynaysa gobolada ay joogaan ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya sida gaba iyo juba iyo magaranaysa iyo baayo boqol joogan ciidamada Itoobiya dhulka ay joogan gobolada ay joogan shabab kuma soo dhawaadaan jeeroomle ciidamada Itoobiya ka taliya marka wuxuu anagu hadii aanu halka uga baxno shabab oo wadamada goboladaasi aan uga baxno dawladda Soomaaliya arrinka waxa kama qaban karto maxallin karto xal u heli mayso maamuliyad iyo awoodna uma laha wuxuu marka anagu shabab la galanay khasaar nabi soo gaadhaxta oo markay noqoto dhinaca dagaalka waan oglay halka waxaad moodaa inuu taliyuhu ku taxsanayo ciidamada ATMIS ee jooga Soomaaliya oo markasta khasaar ka soo gaaro weerarada al-shabaab ama la yiraahdo habeen bay mireen oo intaas oo boqol askar ba dhintay laakiin maalin kaliya lama maqal ciidamada Itoobiya meel jooga
bershabaabka hore marka inuu taa ka hadlayo ayuu badan tahay marka hadalkiisu wuxuu muuqdaa in Ethiopia ay gacanta ku hayso amniga guud ee Soomaaliya gabagabada qodobkeena falaqeynta ee ku saabsan aad soo indhaysay taliyaha guud ee ciidamada qaranka Ethiopia Birhanu Jula haddii ay ciidamada Ethiopia ka baxaan Soomaaliya saameyn intee leeg bay ku leeyahay amniga iyo deganaanshaha iyo dawladnimada waddankaas arrinta ma ka hadlay taliyo horta intaan bixitaanka laga hadlo wuxuu ka hadlay anagu joogitaankaygu buriyo iyo amniga Soomaaliya ilaalinayna waxa ku xiran tahay dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka dawladda Soomaaliya hadii tira baxo baxayna beesha caalamkuna iyada arrinkan loo marka wuxuu ku tirtirsanayaa taliyaha Ethiopia taliyaha ciidamada qaranka Ethiopia wuxuu ku tirtirsanayaa in joogitaankooda ay joogaan Soomaaliya ay Soomaalidu u baahan yihiin Soomaaliya ay u baahan yihiin aan iyagu u baahnayn haddii ay yiraahdaan ka baxnaa ka baxayaan laakiin aan awoodin inaan ka baxo oo Soomaaliya amnigeeda ay og tahay in Ethiopia ku hayaan marka wuxuu anaga joogitaanka wuxuu ku xidhay dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuna ku ogtahay in amnigeena ilaalinayaan marka wuxuu yiri anaga joogitaankayga anaga iyo Soomaaliya haysa laakiin waxaan filaynaa buuri oo muuqata in dadka Soomaalida ay buuri gobolada aan joogno marka gobolada joogan waa Gado waxa weeyaan waa Bay iyo Boqol waxa weeyaan Juba beledweyn beledweyn oo joogan Kismaayo markaan ka baxnay buuri dadka deegaanka ee goboladaasi way lagu kalsoon waxay amni ku qabaan waxay ku kalsoon yihiin inaan ammaankooda ilaalino in ka badan intay ku kalsoon yihiin dawladda Soomaaliya marka haddaan ka baxnay buuri anagu waan ka bixi karnaa dawladda Soomaaliya haysa laakiin ka wuxuu qarinayaa wuxuu qarinayaa dawladda Soomaaliya ka baxna ma oran karto waayo waxaan u hayno ogiin hawshan u hayno ayuu ogiin marka wuxuu kaloo sheegay goboladana wuxuu hadaba ka bixi mayna anaga lafteedu ilaa iyo aanu helo in dadkaasi cid ammaanka u qabanaysa ay halka timaado oo tusaale ahaan cid gacan kale ammaan ah ilaa ay meesha la wareegto ka bixi mayna dadka dayici mayna dadka saan loo jecelanaga ee ammaanka ku kalsoon ka bixi mayna ilaa iyo dad gacan ay ammaan ku dareemayaan ay joogaan arrimahan hadda waxay baneen Cabdi Walaal waxa jira heshiiska saad sheegtay heshiiska safarada dhexmaray Soomaaliya Ethiopia dhexmaray ayaa la ku kiciyay Soomaaliya oo ogtahay Soomaaliya way ognahay waxa ka talisaa qoobadii Muqdisho xaafado gaar ah ka talisaa awood uma laha xataa inay soo ka dalalkii jeerku sheegayaan in iyagu ammaankooda ay ilaaliyaanba waxa kaloo cadeynaa Soomaaliya awood daradeeda safiirkii Ethiopia ee joogay Muqdisho way eri kari waayeen ciidamada Ethiopia sanadkeeda biska daa ciidamada Ethiopia ma saari karaan safiirkii buu dhakar waa iska bax way waxa ogeyd Ethiopia waxa wax hayso nin marka wadan jaari ilaaliyo oo wadankii ilaaliyo ammaanka u sugaya shabaabka ilaaliyo ammaanka dadkiisu ammaanka ku kalsoonaayeen haddana faraha ku fiiqaya ayaa la gelinay maanta caalamku dahab ku soo noolaanayba marka wuxuu yiri taliyuhu ku daray annaga joogitaankayga waxa laga tashanayaa guri sanadkan 2024 beesha caalamka iyo cid kale oo ka tashanaysa haddana anagu ka baxno oo ka baxawno ka baxayna marka de waxa ka qaranaya in Soomaaliya hadii laga baxo ay shabaab la wareegaysa gabigeediba shabaab qabsanaya taliyuhu wuxuu kale haddii aan ka baxno guri Soomaaliya oo ciidamadu ka baxaan waxa hubaana guri dawladda Muqdisho fadhiya kuraasta ku fadhiyaan iyo baarlamaankooda iyo waxaas in uu noqonayaan amnigooda naga gacanta ku hayno marka dawladdaasi de wadanka ka baxmo oo ka Ethiopia ciidanka Ethiopia waxay u hayaan bay ogyiin marka wuxuu ku fasiray ku macneeyay dawladdaasi hal kuraasta nimanka ku fadhiya buu madaxda sheeganaya dadkooda halka u fadhiya baarlamaan sheeganaya ra'iisul wasaare madaxweyne wasiirle haddaan ka baxno buu wadanka uu noqonayo ka yaacayaan meesha marka waa ku tuurtiisa ku dambeeyay waa iska garanaysa marka dal ilaalinaya dal jaari ilaalinaya dalkii muxuu ka sheegi karaa ilaalinayay waxba kama sheegi karo weeyaan marka walaal saas weeyaan aad iyo aad ma santa kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Hayaan oo wariyay falanqeeya arrimaha caalamka gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda tan falaqayntan oo kale ku kulmi doono oo la xidhiidha arrimaha bulshada siyaasadda dhaqaalaha ilbaxnimada iyo xadaaradda caalamka intaas ayaan ku soo gabagabaynaa falaqaynta ku saabsanayd warbixinta uu dhibay taliyaha ciidamada qaranka Ethiopia Birhanu Jula dhamaantay anigu Cabdiraxmaan Almisa iyo Cabdiraxmaan Hayaan oo qodobka falaqaynta inoo soo diyaariyay waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh